بسم الله الرحمن الرحيم warbixinteenan maanta ay waxaynu diradda ku saaraynaa Trump oo goodintiisa xargaha goosatay iyo mujtabi oo madax xanuun ku riday Mareykanka iyo Israa'iil. Iran oo taleefanka ku dhageysanaysa Mareykanka diidayna inay ka qabato. Netanyahu oo ku hanjabay weerar nuclear ah haddii Iran ay diido xabad joojin. iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan oo ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda Bariga Dhexe. sida ay daaha ka rogtay jaridda Washington Post, Mareykanka ayaa waxa uu isticmaalay rasaas madaafiic oo xad dhaaf ah isbuucii ugu horeeyay ee dagaalka uu kula jiro Iran. sida ay sheegtay jaridda Washington Post, iyada oo ka soo xiganaysa mas'uuliyiin Mareykan ah in ciidanka Mareykanka uu isticmaalay rasaas madaafiic oo aad u tiro badan intii uu socday weerarkii ugu dambeeyay ee lagu qaaday Iran. waxaana lagu sheegay inay isticmaaleen tiro lagu tilmaamay midaan hore u dhicin taariikhda casriga ah ee howlgallada militariga Mareykanka ee markaasi uu ku qaado dunida daafaheeda. sida laga soo xigtay mas'uuliyiintani in Mareykanka uu isticmaalay rasaas qiimaheedu lagu qiyaasay 5.6 bilyan oo dollarka Mareykanka ah labadii maalmood ee ugu horeysay dagaalka keliya. waa tiro cagsi ku ah xajmiga howlgallada militari ee waaweyn kuwaasi oo la fuliyay muddo aad u gaaban. sida ay warbixintu sheegtay in maamulka Mareykanka inuu hadda darsayo inuu u gudbiyo codsi rasmi ah Koongareeska Mareykanka inta lagu jiro isbuucani si ay u helaan miisaaniyad dheeraad ah oo markaasi lagu maalgeliyo dagaalka. daraasad la sameeyay ayaa waxa ay tilmaamaysaa in dagaalkani uu socon doono in ka badan intii la filayay. ila Mareykan ayaa waxa ay xaqiijiyeen in heerkani isticmaal ee rasaas oo maalmo kooban ah waxay muujinaysaa heerka aadka u daran ee duqeymo cir ah iyo howlgal militari uu fuliyay Mareykanka. sidoo kale khubarada waxa ay tilmaameen in kharashka intaan la eg oo aadka u badan oo ku baxaya oo maalmo kooban ah ayaa waxa uu cadaadis xoogan ku yahay keedka istaraatiijiyadeed ee rasaasta Mareykanka. midan oo ku riixaysa maamulka Mareykanka kordhinta wax soo saarka militari iyo waliba dadejinta maalgelin. dhanka kale wararka kale ee soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan khatarta mowqifyada haatan taagan. Donald Trump ayaa waxa uu soo saaray war aad u kululkaasi oo markaasi uu soo dhigay bartiisa X oo hore loo dhihi jiray Twitter digniin adag oo ku socota Iran oo ku saabsan marinka Hormuz. Trump ayaa si waadax ah waxa uu u sheegay in haddii Iran ay isku daydo inay hor istaagto maraakiibta shidaal ee ka gudbaya marinbiyoodka Hormuz ay la kulmayso Iran mawjado weerar duqeymo ah oo ka daran 20 jibaar midkii hore loogu fuliyay. wuxuuna intaasi ku daray in Mareykanka uu awood u leeyahay inuu burburiyo hadafyo uu ku sheegay inuu sahlan yahay burburintiisa ee gudaha Iran. wuxuuna xaqiijiyay mid ka dhigaysa wax aad u adag ayna ku adkaanayso dawladda Iran in dib loo dhiso. sidoo kale Trump ayaa waxa uu adeegsaday kalimaad aad u kulul oo hanjabaad ah isaga oo sheegay in jawaabta Mareykanka uu ka yeelayo Iran inay waajahdo geeri, cadaab iyo waliba caro xoogan haddii ay Iran ku adkaysato xirnaanshaha marinka Hormuz. qoraalkiisa ayaa waxa uu ku soo khatimay isaga oo yiri midan waa hadiyad bilaash ah oo China iyo waliba dawladaha aadka u adeegsada marinka Hormuz. hase ahaatee waxa uu ilaaway Trump in Iran ay u ogashahay China maridda isticmaalka marinka Hormuz. Iran oo taleefanka ku dhageysanaysa Mareykanka diidayna inay ka qabato. wakaaladaha wararka adduunka ayaa waxa ay qorayaan isku day xiriir oo markaasi sameeyay Mareykanka kaasi oo lala sameeyay Tehran dabadeedna laga diiday in lala hadlo. iyo ciidanka ilaalada kacaanka Iran oo iclaamiyay abaalgud aan hore loo arag la siin doono dawlad kasta oo irida safiirada Mareykanka iyo Israa'iil. Mareykanka ayaa waxa uu si weyn isugu dayayaa inuu xiriir la sameeyo Tehraanna ay diidan tahay. waxaana soo baxaya warar hor leh oo markaasi aad u kulul oo ku saabsan faylka Bariga Dhexe. wakaaladaha wararka ayaa waxa ay daaha ka rogeen iyaga oo soo xiganaya ilo ku dhow Steve Witkoff, ergeygii hore ee gaarka ahaa ee madaxweyne Trump ee arrimaha Bariga Dhexe ayaa waxa uu isku dayay inuu xiriir la sameeyo wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi saacadihii la soo dhaafay. hase ahaatee lama filaanka ayaa waxa uu noqday in dhanka Iran ay ku dhageysteen taleefanka iyada oo aan wax daneen ah loo hayn in laga qabto.
faahfaahinada la isla dhex marayo ayaa waxa ay tibaaxayaan ujeedka xiriirka uu ahaa in laga wada hadlo sidii xabadda loo joojin lahaa ama si ku meel gaar ah loo joojiyo dagaalka iyada oo haddana gobolka oo dhan isla gubanayo. ilo kale ayaa waxa ay xaqiijinayaan in Iiraan ilaa iyo hadda aan ka soo bixin wax war ah oo rasmi ah oo markaasi arrintani ku saabsan ama istiraatiijiyad kale oo ku saabsan joojinta dagaalka, midan oo tilmaamaysa in mowqifka hadda ayaa golaha amniga qowmiga Iiraan ilaa iyo hadda uusan ka hadlin wax damaanad qaadaya inuu jiri doono xabad joojin ama dagaalka oo la joojiyo. tani ay waxay micnaheedu tahay in hoggaanka Iiraan uu ku dhegan yahay mowqifka hadda uu taagan yahay, iyada oo aan jirin wax tilmaan waadax ah oo ku saabsan joojinta dagaalka galaana wada hadal waqtiga ugu soo dhow. dhanka kale, ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa iclaamiyay in dowlad kasta oo Carbeed ama Yurub oo irida safiirka Israa'iil ama Mareykan u fadhiya dalalkaasi ay u fasixi doonaan maraakiibtooda inay maraan marinbiyoodka Hormuz laga bilaabo maalinta beriya. dadka la socda arrimaha Iiraan ayaa waxa ay ku sifeeyeen arrintani fariin siyaasadeed oo xoog badan oo cadaadis diblomaasiyadeed lagu saarayo dowlado dhowr ah oo gobolka ah ama ka baxsan. kadib markii sicirka shidaalka uu cirka galay ayaa madaxweynaha Mareykanka waxa uu sheegay isaga oo la hadlayay Fox News in maraakiibta wada shidaalka ku dhiiradaan oo la soo baxaan geesinimo ay si caadi ah u maraan marinka Hormuz, isaga oo u xaqiijiyay inaysan jirin wax laga baqo. wuxuuna intaasi ku daray in ciidanka Mareykanka ay qoosiyeen dhammaan maraakiibta Iiraan. sidoo kale waxaan burburinay ayuu yiri meelihii laga soo tuurayay gantaalada, waxba uma harin aan ka ahayn waxaan gaaraynin 20%. sidoo kale generaal Mareykan ah oo howlgab ah oo la yiraahdo Douglas McGregor ahaana la taliye hore ee wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu diyaar u yahay inuu adeegsado hubka nuclearka haddii ay Iiraan diido xabad joojinta laga dalbanayo. wuxuuna intaasi ku daray in Koongareeska Mareykanka uusan weli qaadan jihayntan oo kale, isaga oo carabaabay in xubnaha ku xiran danaha kooxaha cadaadiska ay u janjeeraan dhanka milyaneerada awoodda fulinta leh. ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa indhihiisa ku arkay burburka iyo weerarada xoog badan loo geysanayo Israa'iil, isla mar ahaantaana uu taagan yahay haatan yaa ka joojiya dagaalka. tani ayaa waxayna soo xusuusinaysaa mahmaahda dhahaysa cagti meel fariisan weyda mar bay ceeb la kulantaa.